ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا ورانسان داود الملك صندوق السعودان يمكن هو تي في كم مدح بنان يقولش تي في حالتي سمجلة الكساء داود روح نسوق على حلقة نديسوق بنتنا ورد ذلك ودي سا يدودي سا بين كعاوين نسوق عليه قد بدأ عاور كي يقودر برون أتقطع منذ تانا وحاكم دا حسبية قرن كسومال لأن هي أوردا سياسة السومال لأن هي ما تصحيح هاي الحركة كالرئيس أوردا سياسة السومال لأن golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigooda maanta lagu qaybiyay xeerka hay'adda sirdoonka qaranka dhinaca kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeed Soomaaliland ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan heshiiska ay kala saxdeen guddida diiwaangelinta hoteelka Cape Town ee magaalada Boorama ayaa lagu soo kordhiyay dhismo cusub oo hoteelkaasi u yeelan doono daawadintaasi waa qaar ka mid ah qodobada caawarkeena ugu dalbaroon imikii haatan warkii oo fidsan حسبية قرن كسومالان iyo ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta saxeexay xilka kala reebista ururada siyaasadda Soomaaliland suufaayta warkaasi noogu wariya Cali Mahdi Jibriil Xasan guddiga diiwaangelinta Soomaaliland iyo toddobada urur siyaasadeed iyo waliba labada xisbi qaran ayaa maanta kala saxeexday xeerkan oo ah mid lagu kala saari doono toddobadan urur waqtiga doorashada kadib taasoo ay si wada jir ah u saxeexeen isla markaasna ay ku qanacsanaan ka muujiyeen guud ahaanba mas'uuliyiinta ururadaasi ee xeerka maanta saxeexay ugu horeyntii gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta qaran oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ugu horeyn ku bilaabay sida tan maanta kulankan ama madashan sharafta leh waxa ay axsaabta qaranka iyo ururada siyaasadeed ee ka qayb galaya tartanka doorashooyinka dowladaha hoose ee ujeedadiisu tahay in lagu doorto councillo saddex xisbi qaranna ku soo baxaa weeye madashu sidii caadada ay noo ahayd dhaqanka islaamiga ah waxa aynu ku bilaabi doonaa aayado quraan ah oo uu inoo akhriyo xubin guddiga diiwaangelinta ka mid ah Sheekh Ismaaciil fadal sidoo kale mas'uulka socda akademiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ayaa dhankiisa kula dardaarmay in ay tixgeliyaan isla markaasna aanay xeerkan wax hadal oo dambe aanu ka soo noqonin guud ahaanba siyaasiyiintii halkaasi ka soo qayb galay ayaa mid u saxeexay xeerkan oo dhigaya in boqolkiiba 26 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland urur siyaasadeedkii ka heli waaya inuu ka hadhay wajiyada dambe ee kala saarista ururada Soomaaliland go'aankan ay soo saareen komishanka doorashooyinka iyo ururada siyaasadda ayaa mid muddooyinkii u dambeeyayba ay doodo xasaasiya ka yeesheen labada dhinac isla markaasna uu dhinac walba uu ka dhiibtay afkaartiisa ugu dambeyntiina waxa la isla gartay xeerkan oo si cad u muujinaya qaabka ay u kala hadhi doonaan ururada doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigooda maanta lagu qaybiyay xeerka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliland faafaahinta warkaasina waxaa noo haya wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilka case mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta lagu qaybiyay xeerka hay'adda sirdoonka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigan maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane Baasha Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha lagu qaybiyay xeerka ay yeelanayso hay'adda sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalmaha soo socda furi doona dooda xeerkani iyada oo ay hore u sii hayeen mudanayaasha golaha wakiiladu xeerarka ay ka mid ka ahaayeen xeerka aasaaska komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo doodiisu dhamaatay iyo xeerka qareenada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa in ay dood dheer ka yeelan doonaan xeerkan loo sameeyo hay'adda sirdoonka qaranka maalmaha soo socda qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan heshiiska ay kala saxeexdeen guddida diiwaangelinta Soomaaliland
kadib markii saaka ay si cad u kala saxeexdeen gudida diiwaangelinta ururada iyo 5 urur siyaasadeed ee Soomaaliland iyo labada xisbi qaran ayaan wax ka weydiinay dareenkooda mas'uuliyiinta ururada ee maanta saxeexay xeerka lagu kala reebi doono ururada siyaasadda. ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin ayaa nooga waramay xisbiga ahaan sida ay u arkaan xeerka ay maanta saxeexeen. soo dhameeyeen oo komishanka maamulaya doorashooyinka xeerkan oo habaamirkiisa ay leeyihiin gudiga diiwaangelintu intii muddooyinkan dambe waa laga hadlayay waa laga naaqashay dorhad baa u dambeysay dood aad fara badan baa laga gaaray oo ururada iyo xisbiyadu ay konseenkooda dareenkooda ka muujinayeen waxa ay ka qabaan iyo waxa ay ka ku tala bixinayaan labadaba marka wixii waa la isu geeyay gudiga diiwaangelintu marka maxaan ku dhahdaa doodihii isku soo celceliyeen ay maanta soo jeediyeen xeer ah code of conduct ururada iyo xisbiyadu ay ku wada dhaqmayaan xilliga doorashadu ay dhamaato. dhinaca kalena gudoomiyaha ururka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa dhinaciisa dareen farxadeed ka muujiyay heshiiskani. golayaasha sharci dejintu ay ku sameeyeen marka golayaashu waxa ay ku saleeyeen xidda ururka gudbeysa xisbi qaran noqonaysa inay dalka oo dhan ku leedahay tiro mug leh oo ummadda oo dhan ay wada masasho iyadoo midnimada ummadda iyo wada jirkeeda iyo qarannimadeeda xisbiga soo baxaya uu noqonayo mid khas. sidoo kale gudoomiyaha ururka Rays Xasan Gaafadhe ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay sida uu arka xeerka lagu kala reebayo ururada ay u saxeexay. waan mugdiga ka saaray kana saari doona natiijada doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo bisha soo socota 28keeda xeerkii qodobkii xuseynayay natiijada doorashada. Ismaaciil Aadan Cismaan oo ah gudoomiyaha ururka Dalsan ayaa dareenka ka duwan ka bixiyay xeerka lagu kala saari doono ururada siyaasadda ee Soomaaliland. waxay ku dhawaanaysaa more than 20000 weeyaan marka baro isagoo marka laga yaabo inuu tuuga galay 15,000 oo cod haysto ayaa kii in haystay 12,000 ee cod ergaaba jooga la oranaya isaga ka badiyay oo 20% kiibu ka koreeya waayo ka salkaas uu ka galay kana burcu tuu ka galay madarka grade-kii 1kii baa deesareeyay 1 iyo 2 marka la eegay wixii marka waxaad arkaysaa in wadartii guud sida marka loo eego inay noqonayso maaragtay wax ka fog sida dhabtahayd oo dhici karto cid wadarta guud ee dalka uu ka helay marka la isugu geeyo in la oranayo wuu haray waxaana guuleystay nin ka wadar yar laakiin dalkii beersantkii uu ka helay uu ka badan yahay marka runtii halkaas caqabad bay noqotay laakiin haddana waxaanu garanay maadaama ay u siman yihiin oo nina isleeyahay waxaad ku badanaysaa burca iyo awdal iyo hargeysa iyo badnaashaad noqonaysaa nina isleeyahay waxaad ku badanaysaa ceergaabe iyo berberi iyo intaasaad ku badanaysaa iyo sool oo qof bay isleeyahay oo isweydaar tahay waxaanu aragnay in isu dhawaanayso dadana waxaanu tixgelinay maadaama aanu isnidhi carqalad bay ku noqonaysaa in lagu celiyo baarlamankii maanta oo baarlamankiina uu yahay baarlaman furfurno ururada iyo xisbiyada ka kala tirsan oo sidii dee uu maaragtay wuxuu dhameeyaan baa ay aad u adagtay waqtigiina uu xidhiidhi yahay ayaanu tixgelinay si ummadda shacbiga reer Soomaaliland oo u harlaadan golayaasha deegaanka muddo dheer soo jiitamaya waqtigeedina muddo dhaafay in aanan carqalad ku noqonay ururada badankooda isku raacin kasto ururada qaar ka soo taagneen haddana way saxeexeen. xisbiga u cidiye xaqsoor ayaa iyaguna soo dhaweeyay xeerkani. hotel Captown ee magaalada Boorama ayaa waxaa lagu soo kordhiyay dhismo cusub oo yeelan doona hotelkaasi suufaynta warkaasi noogu soo diray magaalada Boorama wariya Mursal Cilmi Umar. hotelka Cape Town ee ku yaala faras magaalada Boorama kana mid ah hotelada horumarka ballaaran ku soo kordhiyay gobolka Awdal ayaa waxa lagu soo kordhiyay dhismo cusub oo loogu talagalay lamaanaha iyo qoysaska wata caruurta. xafladda lagu daahfurayay dhismaha cusub oo ka dhacday isla hotelka ayaa waxa ka soo qayb galay maayarka magaalada Boorama Salaadiin qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Awdal iyo marti sharaf kale. mas'uulka hotelka Cape Town Axmed Cabdilaahi Saajin oo ka hadlay xafladda ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay dhismahan cusub ku soo kordhiyaan hotelka. kadib markaan aragnay baahida loo qabo lamaanaha oo marka hore ku yaraa Cape Town-ka qaybtiisa hore ayaa qaybtiisa dambe dhammaanteedba ka dhignay guryihii qoysaska lamaanaha ay ku raaxaysanayeen iyadoo midkooda for example waxa weeye halku kale ka ahaa dhul ahaan bad ahaan uu isleeyihiin in yar buu ka yahay halku 9 qol ka ahaa kani 3 qol baa ka dhigay si raaxada qoysku ha u dhamaystiro daaradii uu helo TV-gu helo meeshu kale fadhiisan yahay
meesha uu sagaalkaas ka ahaa kana 3 baa ka dhigay taasi waxaan ugu talagalnay baahi nooga soo baxday markii kan aan furnay oo ku yaraayeen maqsadada lamaanuhu ayay nooga soo baxay baahidaasi aan furno xaaji axmed miisaan iyo suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawal oo xafladan ka soo qayb galay ayaa aad u soo dhaweeyay dhismahan cusub ee loogu talagalay lamaanaha waxa kale oo ay mas'uuliyiintani ku dhiirigeliyeen ganacsatada gobolka Awdal ee ku dhaqan dibadda inay maalgashi ku sameeyaan dhulkooda waxana hadaladoodii kamid ahaa waa sintii ay sheegeen intii nagu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha hudheelada mataanaha ee Cape maanta aan joogno midna dhowrka sano shaqeynay midna maanta la furayo xilkasnimada iyo horumarka uu ka sameeyay magaaladii uu dhashay kordhinta uu soo koriyay bilicda kordhinta uu soo koriyay shaqada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya iyo hantida aad iyo aad bacdi hadiyo u mahadnaqaynaa waxa weeye waa shaqo fiican weey waxaan ka rajaynaynaa saad ugu tabacday ee ugu dadaashay inay abaal celinteediina ummadda aad u soo hoysay aad ka hesho dhalinyar soo shaqaysatay iyo soo saartay halkoogii kuma haysatee waddankii wax ka soo kuwa kalena waa inay ku daydaan oo ninkii soo shaqaystay gacantiisa ku soo galaan waa inay sida inankaa ay ku daydaan oo waddankooda soo dhisaan maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile oo xafladan soo xidhay ayaa sidoo kale aad u soo dhaweeyay dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay hotelkan Cape Town isagoo isla markaasina ugu ballan qaaday cid kasta oo maalgashi sameynaysa inay garab taagan yihiin oo ay ka caawin doonaan waxyaabaha ay uga baahdaan dawladda hoose ee magaalada Boorama waxaan leeyahay cid kasta oo yacni munaasab hawl noocan oo kala magaalada ka qabata waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa wanaag ay magaalada ku soo kordhisay inankana waxaan leenahay magacaagii وحوي واد بوحسي كي مقالة مقعي أكو قاطين واد بوحسي كي ومدى محايا أنا أديك يا مبارد واد بوحسي أو لا كي وقيمة كان كيسيس كوجرة تدوينها كلا دناينا يقنعسنا أما إنا يوحبر سلام أما دي بتشوكا أما قول بتشوكا نحن كوا أميننا إنا حولنا عنو كلا كورا مريان مقالوين أنه ونوفو غايدنا إنا كله waxyaalaha annaguna ay looga baahan yihiin ama ganacsiga ama maxaanaanay qofku markuu wax wanaagsan qabto inaan taakulayno ama wax la qabano waa muhiim mursal cilmi umar bulsha TV magaalada tawadayaasha sharafta iyo qadarinta iyo xushmada wanaagga mudanaataasi waxa ku eeg war dalka gudihiisa iyo dibadiisa habeenkan caawa wixii naga soo gaadhay oo si toos ah uga daawanaysan TV-ga madaxa banaan ee bulsha TV xaruntiisa magaalada Geesa warka caawan waxa idin soo jeedinaya anigoo Maxamed Shiciir Axmed warka xigeentan mar labaad hawada dib ugu kulmayno aniga asxaabtii kale ee bulsha TV ee tabinta warkayga la qayb qaadatay waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh